Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa Naawida Channel. Kusoo dhawaada daawadayaal. Maanta mowduucaynu ka hadlaynaa wuxuu noqon doonaa kooxda Reds iyo wacdara ay sanadkan ka dhigaso kubadda cagta, gaar ahaan qaaradda Yurub. Sidaynu wada ognahay, kooxda Liverpool ayaa sanadkii hore ka dhigtay wacdaro horyaalada Champions League iyo weliba liiga dalka Ingiriiska, kaasoo ay kasoo hoysay guulo la taaban karo oo dhinac walba ah, sida Champions League oo ay gaadhay markii muddo ka badan 7 sano finalka koobka Champions League, halka liiga dalka Ingiriiskana ay gashay kaalinta saddexaad. Haddaba kooxda Reds ayaa waxaa hogaaminaya tababaraha Klopp oo ah nin xirfad aad u badan u leh kubadda cagta. Sidoo kale waxaa jooga ciyaartoy da'yara kuwaas oo xirfad badan u leh qaabka ciyaaraha loo wajaho, gaar ahaan horyaalkan Ingiriiska oo ah mid aad ay ugu duugan tahay taatikooyin badan oo aan u kala mid ahayn horyaalada kale ee qaaradda Yurub. Si awgeed, kooxdan Reds ama Liverpool lagu magacaabo waxay sanadkan isku diyaarinaysaa inay ku guuleyso horyaalka dalka Ingiriiska iyo weliba koobka ugu caansan qaaradda Yurub ee Champions League. Waxaynu ognahay inay kooxda Liverpool haysto ciyaaryahanno xirfadoodu aada u sareyso, oo ay ka mid yihiin 3 ciyaaryahan ee horyaalka Premier League ugu gool dhalinta badnaa, oo lagu kala magacaabo Mohamed Salah, Sadio Mane iyo Roberto Firmino, kuwaas oo ah ciyaaryahanno adduunku la yaaban yahay xirfadooda. Sidoo kale wacdaro aad looga yaabayna ka dhigay koobka Champions League. Xaqiiqatan, markaynu eegno kooxdan Liverpool ama Reds lagu magacaabo, waxay tahay koox ku guuleysan karta koobab badan oo ka mid ah koobabka qaaradda Yurub, maadaama ay haysto ciyaaryahanno aad u xirfad badan. Dhinaca difaaca oo kale markay eegno, Van Dijk baa jooga oo ahaa ciyaaryahan aad iyo aad uga dhex caddaa koobka Champions League ee dhammaaday. Waxaynu ognahay inay haysto 3 ciyaaryahan ee ugu gool dhalinta badnaa horyaalkii dhammaaday ee Premier League. Waxay soo iibsatay ciyaaryahanno xirfadoodu aada u sareyso oo khadka dhexe iyo difaacaba ah, sida Alexander Shaqiri oo ay kala soo wareegtay kooxda Stoke City, iyo weliba waxaa sii jooga ciyaaryahanno aada u badan sida kabtanka kooxda Henderson, Willian, Milner, wiilka aadka u da'da yar ee reer Ingiriis ee Gomez. Sidoo kale kooxda waxaa u fadhiya, oo kooxda koowaad mooye kooxda labaad waxaa fadhiya ciyaartoy aan kala dhicin sida Fernandinho oo khadka difaaca ka ciyaaraya. Sidoo kale waxaa fadhiya Lallana oo aynu ogeyn xirfadiisii sanadkii tegay ee ciyaartoynimo. Sidoo kale waxaa fadhiya Daniel Sturridge oo weerarka, oo aan isaguna 3 ciyaartoy ee weerarka ee Sadio Mane, Mo Salah iyo Firmino aan ka dhicin, oo aynu ognahay goolashu dhaliyo. Marka dhan walba aynu ka eegno, kooxda waxay tahay koox u diyaarsan sanadka sidii ay iskaga riixi lahayd kooxda Manchester City oo sanadkii dhaweyd lala yaabanaa mucjisadii ay ka dhigtay koobka Champions League iyo weliba horyaalka Ingiriiska. Haddaba su-aasha isweydiinta leh waxay tahay, kooxdan sanadkan maxaa laga filayaa? Waa in ay soo hoysaa guulo badan, iyadoo imikaba aanay rajadeedu xumayn, oo 6 kulan oo ciyaartay aan midna dhinaceeda dhulka la dhigin. Kooxda Reds ayaa waxaa u jooga 2 ciyaaryahan oo ay sanadka soo iibsatay, oo labaduba oo ah 2 wiil oo Brazilian ah, sida goolwadaha kooxda oo ah nin xirfadiisu sareyso, xirfadiisa goolwadanimo ahna goolkiibarka xulka qaranka Brazil. Sidoo kale Fabiano oo ah difaac aad looga qadariyo adduunka ayaa ka mid ah. Goolkiibarka kooxdan ayaa ah Alisson oo ah nin ay kala soo wareegeen kooxda Roma. Kooxdan ayaa sanadkii tegay waxay la ciyaartay kooxda Roma 4-dhamaad koobka Champions League, halkaasoo ay ka calmadeen ciyaaryahankan ama goolkiibarkan u dhashay dalka Brazil ahna goolhayaha xulka qaranka Brazil. Kooxda ayaa waxaa isugu xigay ciyaaro aada u badan, kuwaasoo
ciyaaraha adag ay kala hortegi doonaan kooxaha Chelsea oo ay isla ciyaari doonaan Carling Cup-ka maantadan aynu joogno oo Arbacada iyo Sabtida oo ay Premier League isla ciyaari doonaan. Sidoo kale waxay maalinta Arbacada dambe isla ciyaari doonaan kooxda PSG oo ay kusoo garaaceen gurigooda toddobaadkii tegay. Sidoo kale Sabtida dambe waxay isla ciyaari doonaan kooxda Manchester City oo ah koox aad u cadcad oo na hogaaminaya Guardiola. Sidaynu ognahay kooxdan waxay kasoo guuleystay toddobaadkii tegay kooxda PSG oo aynu ognahay lacagtii la geliyay oo uu joogo xiddiga Neymar ee reer Brazil kaasoo aad kubadda cagta looga dambeeyo. Kooxdan ayaa taatiko ay isticmaashay kaga badisay kooxda PSG, rabtana inay garoonkooda magaalada Paris kaga soo badiso kooxdani. Kooxdan ayaa la filayaa inay sanadkan wacdaro ka dhigi doonto kooxda koobka Champions League maadaama ay dhulka dhigtay koox ay joogaan laacibiin aad u badan sida Neymar, Mbappe, Cavani oo ah saddexda weeraryahan ee ugu fiicnaa koobka France. Klopp ayaa ciyaar wanaag laga filayaa kooxdiisa kulanka uu caawa kaga hor iman doono tababaraha cusub ee kooxda Chelsea oo ah koox iyadu wacdaro ka dhigaysa sanadkani horyaalka Premier League. Laakiin koobkani Carling Cup-ka badanka wuxuu ciyaarsiiyaa mudane Klopp kooxda labaad